kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo Sacuudiga soo galay iyo shakhsiga ay wataan oo xilligan la ogaaday warbixinadii ugu dambeeyay amuurtaasi ku saabsan ayaan soo gudbin doonaa sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan faahfaahin ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Boosaaso iyo dhimasho dhaawac la soo warinayo inay ka jiraan halkaasi sidoo kale warka waxaan idinku haynaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo kursiga xildhibaan oo si weyn la isugu hayo xilligan wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa Shiinaha oo jawaab ka bixiyay booqashada wafdiga Soomaaliland ee ku tageen Taiwan qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay tartanka doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa Sacuudiga soo galay xilligan iyadoo la ogaaday shakhsiga ay wataan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya u fadhiya Soomaaliya Ahmed bin Mohamed Salih Al Muwallad kulanka Rooble iyo safiirka Sacuudiga ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Sacuudi Arabiya iyo sidii abaaraha wax looga qaban lahaa xilligan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiska ku qaabilay safiirka dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya u fadhiya Soomaaliya Ahmed bin Mohamed Salih Al Muwallad oo ay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo sii horumarin lahaa ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo danjire Muwallad ayaa ka wada hadlay xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya iyo sidii dowladda Sacuudi Arabiya ay qayb kaga noqon lahayd gurmadka la soo gaaraya dadka Soomaaliyeed oo xilligan abaara ba'an ay saameeyeen sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Rooble kulanka Rooble la yeeshay danjiraha Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu kulamo looga hadlayo gurmadka abaaraha uu la yeeshay qaar ka mid ah ganacsatada culimada diinka iyo waliba safiirada wadamada caalamka u fadhiya Soomaaliya Sacuudi Arabiya ayaa sanadkan qayb ka ah dowladaha Carbeed ee doonaya inay galaangal muuqda ay ku yeeshaan doorashooyinka ka socda Soomaaliya balse waxaa hubanti la'aan ah inay markaasi ay kala xushaan musharaxiinta madaxweynaha u taagan xilli la sheegayo in Daahir Maxamuud Geelle inuu ugu cadcad yahay shakhsiga ay taageersan yihiin Sacuudi Arabiya dowladda Qatar Imaaraadka Carabta iyo waliba Sacuudiga ayaa waxa ay isku hayaan arrimaha doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya waxaana ay lacag badan ay xilligan ay ku bixinayaan inay maalgashadaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xilligan ku soo aadan wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya ayaa waxa lagu xantaa in xilliyada doorashada Soomaaliya ay si weyn galaangal ugu yeeshaan iyadoona la tilmaamo in qasnado fara badan oo lacag ah ay ku faaruqaan marka la fiiriyo shakhsiga ku soo baxaya xilka madaxtinimo ee ugu sareysa dalka Soomaaliya iyadoo la tilmaamo in wadamada khaliijka ay si weyn ugu loolamaan marka la fiiriyo doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya oo lagu eedeeyo in iyaga shakhsi ay wataan uu dalka Soomaaliya hoggaan uu ka noqdo waxaana haatan wararka soo baxay ay sheegayaan in dowladda Sacuudi Arabiya xilligan galaangal xoogan ay ku yeelanayso doorashada Soomaaliya iyadoona Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya la rajeynayo oo loo saadaalinayo in iyaga ay soo dhisayaan oo xilligan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya dhankooda marka la fiiriyo lacag badan ay ku bixinayaan dhinaca kalena faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo la soo warinayo in dhimasho dhaawac qaraxaas uu sababay wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax xoogan oo sababay khasaare badan oo isugu jira dhimasho dhaawac sida la ogaaday qaraxa waxa la beegsaday meherad nooca loo yaqaan Merfishta ay fariistaan dadka qayla taasi oo ku taala bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari halkaasi oo ay fadhiyeen dad isugu jira shacab iyo waliba askar inta la xaqiijiyay ilaa hadda waxa ku geeriyootay qaraxaasi 3 qofood halka ay ku dhaawacmeen 10 qofood oo kale mas'uuliyadda qaraxa ayaa waxa durbadiiba sheegatay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo iyagu inta badan qaraxyada ka fuliya deegaanada Puntland sida ay tilmaameen
Boosaaso ayaa amnigeeda uu sii xumaanaya tan iyo markii ay soo bilaabatay xiisadii ka dhaxeysay xukuumadda Siciidan iyo waliba saraakiisha sarsare ee hay'adda BSF-ta maamulkaasi kadib markii agaasimihii hay'adda BSF-ta Maxamuud Cismaan Diyaano uu xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani taasi uu ka biyo diiday iyadoo xiisad ay ka aloonsantay magaalada Boosaaso oo dirir xoogan ay ku dhexmartay ciidamo horkacaya ambaba taabacsan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo waliba kuwa daacad u ah agaasimihii xilka laga qaaday BSF-ta 17kii bishii hore ayay ahayd markii laba qarax lagu weeraray laba shirkadood oo ku yaala bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Weerarka koobaad oo ahaa bam ayaa xilligaasi waxaa lagu tuuray xarunta shirkad lagu magacaabo Al Najax waxaana ku dhaawacmay hal ruux halka qaraxa labaad lagu weeraray xarun ay leedahay shirkad kale oo la yiraahdo Muwaafaq. Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay falal lid ku ah amniga magaaladaasi oo kamid ah goobaha loo qorsheeyay inay ka dhacaan doorashooyinka Puntland. Magaalada Boosaaso waa magaalada u ah deegaanka labaad ee doorashada Puntland iyadoo la rajeynayo in dhawaan kuraas ay taalo halkaasi doorashadooda ay ka dhacdo walow xaaladeeda amni xilligan laga deyranayo. dhinaca kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyadoo kursiga xildhibaan uu xilligan u tartamayo si weyn la isugu hayo. Waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaasi oo sanadkan doonaya in xildhibaannimo uu halkaasi ka soo helo. Inkastoo aan laga hordhici karin in beelaha iskale kursiga ay siin doonaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo in kale haddana waxaa loo saadaalinayaa in siyaasiga lagu sharfo xildhibaannimada. Si diiran ayaa loogu soo dhaweeyay garoonka Ugaas Nuur ee Dhuusamareeb. Cilaaqa ahaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxweyne Qoorqoor iskuma wanaagsana balse salaanta la islama agmaro. Lama ogaan karo isxifaaleynta siyaasadeed ee kursiga Hob 138 ka socota iyadoo kulamo gaar ah ee odayaasha beelaha iskale kursiga ay lahaayeen saacadihii la soo dhaafay. Xog hoose aan helayno waxay sheegaysaa in sanadkan beesha iyo Badhaale Ceer ay codsadeen in kursiga la siiyo taas oo ay ku adkaan doonto beesha Habar Eji inay aqbasho maadaama Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay u wada sharaxan yihiin halkaas kursi. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa waxa uu mucaarad si weyn u diidan ahaa hanaanka dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminta dalka waana mid u sahli doonta sida la sheegayo in kursiga xildhibaannimo uu si fudud ku helo. Sidoo kale kursigan waxaa ugu cadcad oo xilligan loo saadaalinayo wariye Xasan Cade oo xilligan la tilmaamayo inay wadato madaxtooyada Soomaaliya iyadoona kursigan inta badan xilligan loo saadaalinayo in isaga uu noqon doono musharaxa ku soo bixi kara balse Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa sidoo kale loolanka kursigan qayb ka ah kaasi oo shaaciyay inuu u taagan yahay inuu u tartamo xilka xildhibaannimo ee 4 sano ee soo aadan ee kursigaasi. Dhinaca kalena Shiinaha ayaa jawaab waxa ay ka bixiyeen booqashada wafdiga Somaliland ee ku tageen Taiwan. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa waxa uu jawaab carar leh ka bixiyay booqashada wafdi ka socda Somaliland ay ku joogaan dalkaasi Taiwan halkaasi oo la filayo inay ku kala saxiixdaan heshiisyo cusub. Afayeenku waxa uu sheegay in dunida laga aqoonsan yahay hal dal oo la yiraahdo Shiinaha Taiwan-na ay tahay qayb ka mid ah oo aan laga maarmi karin oo ka tirsan Shiinaha. Afayeenku waxa uu carabka ku dhiftay in Taiwan ay isku dayday inay raadiso gooni ugoosad balse ay sidoo kale horinayso olol si ay u wiiqdo madaxbanaanida iyo midnimada dalal kale. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV tan iyo kulanti waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.